kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka maalmaha fadlan subscribe saar haddii ay tahay markii kugu horeysay si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan halkan soo gelino ku soo dhawaada sheeko ku saabsan Professor boqolaal caruur ah oo darbi jiif ah ku qoodiya wadooyinka hareeraheeda. dalka Hindiya waxaa ku nool caruur badan oo la dhibaatoonaya nafaqa darro 40% dadka dalkan waxaa la sheegay in ay dayacaan wax soo saarka cunnada si kastaba tiro badan oo caruur ah ayaa ku dayacan wadooyinka dalkaasi balse nasiib wanaag qaar iyaga kamid ah ayaa la kulmay Chandar Sekhar oo ah barasare maadada kombiyuutarka ka dhiga kuleejka Asansol ee galbeedka magaalada Bengal waxa uu ninkan uu qorsheeyay in uu quudiyo caruurta saboolka ah ee qaba baahiyaha kala gedisan. Chandar ayaa aas-aasay sanadkii 2016 hay'adda aan faa'iido-doonka ahayn ee loo magacaabo FEED oo ka shaqeysa waxbarashada cunnada iyo horumarinta dhaqaalaha. isaga waxaa ku weheliyay hay'addan saaxiibadiisa gaarka ah kuwaas oo caawinaad u fidiya dadka taagta daran xitaa waxay diideen qaadashada lacag oo ay u arkaan inay imaanayso shakhsiyad kale balse waxay go'aansadeen in ay joogkooda ka jiraan wax walba oo lagu gargaarayo ama lagu caawinayo caruurta dhibaataysan ee ku dayacan gudaha wadanka Hindiya kuwaas oo nolol aad u daran ku nool. mar uu la hadlayay Outlook Indian Chandra ayaa yiri uma imaan in aan lacag sameeyo dadkan tidooda ma doonayno. xubnaha FEED waxay dareensan yihiin in aysan u baahnaan cunnada kaga imaanaysa maqaayadaha iyo hoteelada waxa ay noo kaysan cunno waqti dheer qaadanayso inaguna caruurta ma siino cunno isticmaalkeedii la dhaafay oo aan ku haboonaan waqtigan in caruur la siiyo balse waxaan u haynaa cunto fara badan oo kaydsan taas oo lagu talagalay in caruurta aan ku quudino mana u baahnin cunnooyinka la soo isticmaalay ee aan tayada lahayn ee laga keenay maqaayadaha iyo hoteelada ayuu cod dheer ku sheegay. hay'adda FEED waxay sidoo kale caruurta u fidisaa daryeel caafimaad waxay sidoo kale xarun caafimaad ka sameysay wadada dhinaceeda halkaas oo ay ku diyaarsan yihiin dhaqaatiir si ay u daaweeyaan caruurta darbi jiifka ah. ilaa hadda waxay daaweeyeen wax ka badan 150 caruur ah kuwaas oo qaba baahiyaha kala duwan ee dhanka xanuunada. haatanna waxaa jira boqolaal kale oo ay doonayaan in ay daaweeyaan. hay'adda FEED waxaa hareeraha wadooyinka ugu shaqeeya in ka badan 40 dhaqaatiir oo intooda badan takhasuskoodu yahay caruurta kasoo dhammaan daaweyntu waxay ku baxaan lacag la'aan daawooyinkana waa bilaash